sidaan idiin sheegnay caawa baraha bulshada waa uu ka duwan yahay toddobaadyadii hore oo waxaan ku eegi doonaa inta badan bulshadan fursad siin doonaa qayb weyn ee barnaamijkeena baraha bulshada ka yihiin su-aashii dhanka iyo facebooka pageka tv-ga aan kusoo bandhignay ayaan barnaamijka ku qaadaan dhigaynaa oo iyadu xiise gooniyaa lahay dad badanna ay aragtiyo kasoo dhiibteen qaar kalena sheekooyin qosol badan ay barnaamijka inagula wadaageen su-aasha oo ahayd markaa waxyaabihii kula yaabka badnaay dhanka baraha bulshada iyo burburka qoyska marka la yiraahdo baraha bulshada saameynta uu ku leeyahay ayay ahayd su-aasha qofka intaaba sheekooyinka loo gudbin farxiye waxaa la yiraahdaa baraha bulshada sida Soomaalidu ay aadka isticmaalkiisa ugu badatay taban xillina dad gooni oo yar oo aad badnayn baa isticmaali jiray hadda maamooyinkii odayga xaafadda guriga dhanba waxa laga todobada qof ku nool inay wada isticmaalaan iyagoo saweyn walba qolkiisa uu live Facebook ka soo galo aadi aad dabcan waxaa la yiraahdaa qoysaska Soomaaliyeed gaar ahaan markii la yiraahdo loo yimaado aad buu saameyn ugu yeeshay baraha bulshada siiba Facebook markii loo yimaado waxa laga yaabaa gabar iyo odaygeedii oo isageyn inay laba mid walba akoonkiisa gaarka oo live ka yahay laba mowduuc oo gooni ah laga hadlayo meesha marka waxa la dhacaysa waqtiga live ka ku jirto caruurtii inay meesha ku bay hoofto dabcan waxyaabaha meelaha aadka looga cabaado baraha bulshada sida Facebook oo saameynta ku yeeshay waxa kowka ah wadamada reer galbeedka oo kale dad yoga jooga Soomaalida joogto aad bay looga calaacala marka waa caawa sheekooyinka laga soo diray la soo wadaagay dabcan waa daawan doontaan waxaana ku jira qayb aad ula yaabi doontaan saameynta uu ku yeeshay burburkaasi marka soo dhawaada waxaan maleynayaa qofka ugu horeeya may adaa ugu jirtay ma ka xoognaada hadda dhaweey noo bilowba ay dhahdeen magda mar walba ana igu soo aadisa cadaaladna ma ahan ma dabcan saas awla rode waxa la yiraahdo dad wax barato bisada meeshay wax ka barato ku macluusha ma la jiro meeshay ma ugu baratay macluul limada marka adigu saad hore bad aan u bartay inaad u bilowdo ya hadana ku siiyay marka ma qabsan karo ma soo ayaamihii dambe lama dhayn ladies fast ladies fast xagaas ay u reebiya waayahay qofka ugu horeeya ee nasiibka u yeeshaan eegaya waa Cabdiqani Cilmi Jiiriyare qof dhanka iyo Facebookiisa ku soo galo Cabdiqani Cilmi Jiiriyare wiilkan waxa uu yiri wiil ayaa gabar ay wada sheekeysan jireen u dhahay waxayna u sheegtay inuu aad u jecel yahay oo uu rabo inuu guursado way diiday gabadhii ma uusan murugoona la yiri wiilkii bal fiir waa wiilkii gabadha adduunka u jeclaay diiday wuu dhool cadeeyo yiri saaxiibkii ayaa weydiyo yiri sababta uu dareemi waayay qalbi jab maadaama dadka inta badan marka qof diido ama qof uu xiriir kala dhaxeeyay ay kala haraan ay ku waashaan buu yiri matag cunto cuni waayaan mataga igu daranba cunto cuni waayaan dhowr maalin qol isku soo xiraan ama qaarkood Facebook ay ku ciil baxaan maanta oo dhan anigu horaan u soconaya anigu qof uma jabo ay soo qoraan yiri wuxuu saaxiibkii weydiiyay war maxaadan u murugoon yiri markaas wuxuu ugu jawaabay maxaan u murugoonayaa oo dhahay waxaan anigu waayay qofaan ani jeclaan u dhahay laakiin waxay iyadu way soo dhahay qof aad iyada u jeclaa meeshaas su'aal baa ku jirto waxaan maleynayaa hadduu calaamad su'aal soo geliyay waa sideeda haddii kale anaa gelinayo suu ku ogaaday inaysan iyadu jeclayn hadda marba hadday ka tagtay tirada guurkaaga mar rabo walaalan uu iskala ka socday iyada afcad u tiriba marka halkaas laga qaado halkaas uu fahmay gabadhan wax jacaylka ay ninkan u qabto ka weyn uu isagu sameeyo noo qariyay ma u maleynayo maxay horta jacaylka wax ka weyn ma la samoogin qof aad jeceshahay oo dhab ay ka tahay de maxaa la yiraahdaa oo guurna ku soo bandhigtay ma u maleynayo wax ka hor istaagi karo guurka inuu sameyn karo inuu jiri karo ama sameyn karo waa la yaabaa inay dhacdana marka wuxuu yiri sidoo qofka xaalad kasta ka dhigta ayay u noqonaysaa sida dadku ay wax u arkaan ayaana kala duwan yani wiilka waxa uu dareemay in gabadha ka tagtay ay ka tagto qof uusan jeclaan soo uusan murugoonin laakiin ayada ay dib qabto qof adduunyada u jeclaa ay weysay mar kalena de qofku jecel horta si aad ku hesho way adag tahay Soomaalida waxay tiraahdaa mataqaana qof aad jeceshahay raacine qofku jecel raac baa leeyahay horta gabdhaha leeyahay laakiin gabdhaha horta mid baana jirto wax walba horta waxa ka weyn calafka waxa laga yaabaa inuusan yarkaas qorshaha ku darsanin
calafka laakiin waxaa dhacdo qofkan iyadoo lagaba yaabo inay dhab ku jeceshahay ku rabto haddana qoraal ilaahay meel yaallo iyadoo ku jecelo kule waa ku jeclahay haddana nin kale aado weliga adigu ma aragtay qof kule waa ku jeclahay ruux kalena guursanaya ama uma socdo ama laga yaabo calafkaa dhammaaday marka qofkaan calaf baysan isku lahayn calaf baysan isku lahayn dee qofkaas calafkiiba isu keeni lahaa iyo meesha aan kuma jirin laga yaabo inuu soo urureegayo ugu dambe inta badan horta waxaa la yidhaahdaa labada qof is jecel waa isu soo laabtaan anigu waxaa isleeyahay sida loo kala tegay adoo hadda maanta taa jecel weyso xaalada dhib male maalinay kuu soo noqonaysaa horta waxaaba jirtaba soomaalida dee dadka suugaanyahantaaba inta badan aad jacaylka uga sheekeeya allah u naxariistay abwaan ka mid ah abwaanidii soomaaliyeed maxamed cali kaariye wuxuu ka mid ahaa baa la yidhi dhakhtarka jacaylkaa loo bixiyay dhakhaatiirta jacaylku ka mid ah waxaa jirta jacayl fara badan oo aada u soo maray ilaa waqti uu ka heeso annagu kama heesaynaba waxaan samaynaba garan haddaad u badato waa siduu ninkaas sheegayo facebook laad ku celbixi kartaa laakiin isagu waa ka heesa anigu qof uma jabo shaala oo la wada ogaabay dabcan muddo kadibna qofkii uu jeclaa oo xitaa la guursaday baa u soo noqday waxaa la sheegaa marka taariikhdiisa laga sheekeynayo in 9 sano ay muxuu ahaa ay gabadhii maya 9 sano ay wada joogeen qofkii kulay hadduu calafki dhamaadana malaha dadka taariikhyada iyagaa ogay laakiin isagu waa geeriyooday 2013kii marka waa sheekooyinka taariikhda ugu badan ee la yidhaahdo qofka hadduu jacayl aad wadaagtaan waa isku soo laabanaysa marka adigu waxaad aaminsan tahay hadday maanta kaa tagto adduunyada u jeceshahay horta waqti baa jiro oo haddii malaha markaa is leedahay guurba maad ka yarnasatid weli maadan gaarinaya maalin baa anagoo iskool baan dhiganaynay markaasaa macalinkii baa waxbuu na weydiiyey dadkii da'diisii baa markii da'daa qof walba la weydiinaya xilligeed dhalatay baa la islahaa dadkii waxan bay sheegaan dadkii wax wada waaweyn bay iskaba dhigeen oo kii xitaa yaraa u isweynaysiiyey macalinka markuu anigii soo gaaray yidhi abdulqaadir adigu bal da'deed tahay waxaan ku yidhi anu macalin 2 da' ba waa la ii sheegaa baan maadaama meel baadiyaa ku dhashay oo istaal aan ku dhalanin oo taariikhdeedu aysan qorayn xaafadda markaan joogo waxaa la yidhahdaa niyow sanadkaasuu ahaa iyo sanadkanuu ahaa iyo dadku inta badan dhahaan marka sanadkee sidii loo sugayey dee malaha 9-meedii xaggaa soo aadaya waxa ay 2001 iyo 2000 baa isku hayaan baa xaafadda anigu marka 2001 baa qaatay oo kowdii aan soo aaday marka haddii ay waqti uu kugu simayo aad joogto hadda jacaylkaaga dil lagaa guursaday iska usug baan dhihi lahaa qofka iska soo laabay dadka lu gooyn loo akhri bahaysanaye aad sheekadaas dabcan kolley ugu horeysay dhankayga haddii aan soo qabto daawadaha fursadda u helay in warqadda labaad la akhriyo wuxuu yidhi magacaygu waa cabdulaahi sheekh cumar waxaa igu yaabadnayd buu yidhi markii gabar aroos ah uu ninkeeda yurub ku laabtay dabadeedna uu ka bixi waayey waan mashquulsanahay haddaba markay isku daydo inay waqti la qaadato dabcan markay isku daydo inay waqti la qaadato ayaa wuxuu yidhaha waa mashquulsanahay nasiib wanaag daacad ayay iska ahayd gabartu waxayna dhigan jirtay madaraso waxaana la dhigan jiray buu yidhi gabar kale maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadhii waxaa arrin sir ah u sheegtay gabar kale waxayna ku tiri dabcan ereygan hadda meesha kusoo qoray nij baa qoran laakiin gabadhan bay dabcan la hadashay nin ayaa ila sheekaystay ka wadaa dabcan nin ayaa ila sheekaysto yurub ayuuna joogaa anigu mar nin waxay ka wadaa nin macnaha okay waad fahantay nin ayaa ila sheekaysto yurub ayuuna joogaa anigana ma rabo marka wuxuu i dhahay gabar iga soo baar gabar ii soo bar iga soo baar gabar gabadh iga soo baar maadaama iyadu ay tiri ani kuma rabo gabadh oo wanaagsan weliba oo madrasada dhigato gabadhu qoyba madrasada dhigatay isma ogade waa laba kala bareedo isma kala war la tii kale ayaa tiri naabal itus haddii uu nin qurux san yahay gabadho badan baan aqaanaaye gabar wanaagsan aan ugu raadinay bay tiri itus bay tiri sawirkiisa gabadho badan baan aqaanaaye bal gabar raadinay hadduu nin qurux badan yahay way tustay saawaaba ninkeeda eeg markaa walaalo yurub iyo afrika dhibaatada meesha ka dhacday saawaaba ninkeedii bay tiri caadi ayay iska dhigtay dabcan maysan dareensiinin markaas ayay tiri igu xir anaa kii
baanba anna kii baaban kala tagnay dabcan lamaysa ceebteeda bay qarsatay oo maysa sheegin wax ceeb waaye gabadh iyadoo la qabo ma dhigi karto ninkan igu xir waxay tiri igu xir anigana kii baan kala tagnay marka dabcan way ogeyd mar hore dabcan qosol bay soo raacisay waa la wada hadlo waxa la wada hadlaba waxaa sawir been ah ay u dirtay bay tiri asna kii u soo diray bay sawir been mar walba ha sawirada ilaa wayna gabar kale inay tahay bay ku baratay oo ay kala hadasho number cusub okay marka waxay iskaga dhigtay gabar cusub inay tahay oo tii hore aysan ahayn oo tii hore hadduu sawir u soo diri yiraahdo sawir gabar kale u dirta amalaha ay si fiican sawiraanteeda u soo badsatay oo aan hore u aqoon gabar number cusub oo hore u aqoon bay kala hadasho waxa uu go'aansaday inuu video call ku soo waco oo yiraahdo bal gabadhan quruxda badan ee kula sheekaysanaysa sawiraan baad aragtaa bal video call ku wac wax badan ayay ka diiday maalinkii dambe ayay ka ogolaatay saawaaba xaaskiisii uu dhihi jiray waan mashquulsanahay reerkaas aakhirkii waa burburay bal fiiri dabcan waxay daba socotaa gabadhu su-aashii ahayd bal saameynta ay baraha bulshada ku yeelatay reer Soomaaliyeed oo degan oo baraha bulshada dartooda isu furay dabcan hadda gabar uu qabaa xaaskiisa ah oo ay goor isguursadeen Yurub ku noqday horta dabcan horta rag waxa la yiraahdaa dabcan kama dhamaado markii si loo fiiriyo ma fahantay waxa laga yaabaa inuu gabar kala raadiyo laakiin isaga mid baa ka waxa igu daray halku ka raadiyo waa madrasadii ay dhiganaysay gabadhii uu isaga xaaskiisa ahayd ceebta hadda waxa ay ka tahay ama burburka reerka waxa uu keenayaa socialka gabadha waxa hadaysan Facebook ahaan lahayn oo inaysan reerkayada dabcan isaga laftigiisuna waxa qurux badnayd hadii uu magaalo gabar ka raadinayo inuu magaalo kala aado oo magaaladii gabadhiisu uu soo gaasigan uu ka wareegsado marka gabadha hadii la hadasho ninkii wuxuu leeyahay waa mashquulsanahay fiir waa mashquulsana kadibna wuxuu raadinayaa mid kale cusub oo u barto kadib markuu iyadii qof kale isaga dhigtay time buu siiyo ay ku wada sheekaysteen way la sheekaystaa sawir soo dir buu dhahaa dhibaatooyinka waa jiraan dabcan waa taas iyadu waa badan tahay aad iyo aad u badan tahay baraha waaga aad buu maasan yahay wiilka waxaan eegayaa markana ديريال الله ويلكاس عبد الله عدان الديري اوكي طبعا منو كسو قرن ماشي جوجو شاكله كسو ها واتهي اسمهان عدي ما بلغا يابا انو اسغا ما اسكا دحي كرتا waa sheek xogta un baa kulli okay dabcan ku qurux badan tahay inaad qofka meesha joogo haduu ku sheego waa iska joogo haddaba ismahan caday waxaa igula yaabadnaa bay tiri wiil baa maalin boosti soo dhigay bay tiri okay wuxuu yiri bay tiri sida tan qofku inuu carab la'aado waa caadi buu yiri يعني عرب ججا أما عرب ججا ما لا إنه أهذا أنا عرب لا لندانا عرب ججا عندنا أنا أوكي لكن إنه بوستي عرب لا أنا صادقه والله ياب بوستي بس مالن أركت قبل معناها صح مركب واحد ترجبر با يدو آد وعريسان بيتري أسوي جواب تويلكي صادقة معناها إن العرب ججا تهاي دمشري لكن بوستي عرب ججا إن صادق تأيا عيبة هاي markaas waxay tiri gabadhu soo dhigtay aniga laftarkayga waa inay carab gajo iska dhigaa markan maxay tiri calabteena inuu mashquulo والله ما يبغى أكتر ما جابيه يجيب يعني أغريان يا سوق علب تاني إنه تمشغوله ولا تفي يعني أيوة سيدي واحد طبعا أنت اوكي علب تاني إنه تمشغوله ولا تفي يعني علب تاني إنه كمش horta mashquulka ma weydii inta badan horta erayada ugu adag mashquulo ku mashquulo ka ma jirto calabteena inuu mashquulo wala tabiicaya raalada waa iska kaftan waaye ismahan cadeeyaan noo soo dirtay runtii horta carab la'aanta waxa la dhahaa waa marka yaraanta hooyada yaraantaada ay beer ku siisay maxaa ka jira hada horta qof xaqiijin kara arintaas ma jiro oo maamadii xitaa ilmahan dhashay hadii la weydiin lahaa baa malaha la ogaan lahaa laakiin badi waxaan aragnaa ma taqaanaa ciyaalka ilmaha yar yarka ahoo dee dhowrkaa sano bilowga jiro 3 sano 2 sano 1 sano bilooyin wax ma cunee 1 sano ka
sanad adiga 2 sano 3 sano intay ka hadlaayeen waxa la taqana hasiina marka beero kala cunayso kala hadaa sii rabto kala waxa lagu leeyahay hayga siin beer hayga siin maxaa dhacalmta hadhoodi ma hadlaayo ama carab gajow noqonayo hadalka ku noqonayo soo inkastoo de reasonka saxda aan la ogeyn laakiin de carab gajow xataa dib ma jiro qofka haduu yahay dadkiisa caadi ku dhex jira erayada qaar baa laga yaabaa inuu si kale u dhahe laakiin ceeb kala ma jirto horta dabcan erayada ugu adag ee qofkaasi aadka u dhiba raacda ku jirto iyo kacda raadiyadu waxaan horta aqaanay xilli anagoo yar yar quraanka dugsi quraanka dhigan jiray ya alifka de markii la soo bilaabo la wadaya raac baa la soo gaaraya waxa la yiri macallimiinta dugsiga quraanka dhigay kamid aha oo isagoo carab ka jahan ama carabka mala ayna de aan kari karin xarfiyada qaar ya ardaygu quraan u dhigay haye waxa uu leeyahay markuu raac soo gaarayo leeyahay laadhe ardaygu la u dhigay waa macallinkiisi markaas macallinku war sidaan aanu leeyahay hadhiine laadhe laadhe lu leeyahay hadda macallinkii afkiisiiba la macallinkii afkiisiiba marka macallinku wuxuu leeyahay waa raac maadaama aad raac dhigi karto raacde ka yarna wuxuu leeyahay macallinka hadalkiisa ha ka dabaleexanine laadu hadii kale ulbaa ku taqaanada wala dad macallinku isagoo raac ku dhaad la tiraado wuxuu ku leeyahay war raacde uu kugu qasbaya wali macallin quraanka xilliga maadaama qofka inuu wax barto oo quraankaas uu muhiim u yahay wuxuu leeyahay wariya ruuxa tirada laade yarana la warani hay raacina laade la marka raacda iyo elko kale isku qaldaan kacda iyo ta'do kale isku qaldaan kacdo kale waxay bedelkeeda waxay u adeegsadaan ta'bay u adeegsadaan ku mashquusho kale hadda markay tahay tu mashquusho hada maxay tiri calabteena ها waxay tiri calabteena inaad tu mashquusho waa la tafiican yahay sina waa u yara fani marka ma sha Allah way maasan tahay ismahan cadeey kulli barnaamijku waa iska barabulsho waxyaabaha ugu saameynta badan ee iska qosolka ah waxaan ku soo qaadanayna qof kastana waxbu marka isagu uu yiraahdo waa boostigaas igu yaabadnaa bay tiri wuxuu ka hadlay isla gabar marka oo yaani oo carabka jacaba u soo jawaabtay horta waa su'aal meesha ku qorano ama su'aal meesha taalo qofka gamcaha ilaan carabkii ma aha Soomaa ma adeegsanayo laakiin baydu imka wax qoraysid waad akhrinaysaa hadda adiga waxaad ka siiqaysaa u dhahaysid un badu qoraysaa marka farihi markaad wado waa laadin sidii baa u qoraysaa ha taana way iman kartaa laakiin maadaama aad fahansan tahay inaad adiga ra u socoto inaad raad qortaa fiican waa dhawaaq ku dhawaaqi karin dhawaaq baad ku dhawaaqi karin laakiin macnaha markaad ka hadlayso waa ra waad u socotaa waayahay marka boostigaas aad iyo aad ismaan caday dhankayga aad soo joogtaa ma ciyaarta maxaa la jiray goolkulaadka aniga xaggaygu soo maray xaggaagu soo maray kay dhici aad iyo aad warqadan aan gacanta ku hayo waxaa isagana noo soo diray Saadiq Xaaji uu lagu magacaabo waxa uu yiri waxa igu la yaab badnaa buu yiri ayaa ah in isbitaalka Wuhan China wuxuu ka hadlayaa fayraska ka dilaacay dalkaasi China corona isbitaalka Wuhan ee China lagu dhisay buu kaliya 48 saacadood gudahood 6 bari buu qaatay laakiin dhisiis in la taago aad iyo aad dawlad 6 bari laftooda hadii la yiraahdo baaba wax badan ahayn laakiin yaani in oo la guda galo waa 48 hour ay ahayd 8 saacadood laakiin maanta sida 6 bari bay qaatay isbitaal weyn wayday hadday buu yiraahday malaha Soomaali ahaan lahayd waaye marka su'aashii waxaan Soomaalidu ku dabaqaya haday malaha Soomaali ahaan lahayd buu 2 sano baarlamaanka ka doodi lahaa 3 sano waxaan dawrsan lahayn dabcan mashruuca lacagta ku baxaysa de isbitaalka dabcan ma hayno ka dhigan tahay marka meel kale aan weydiin lahayn 2 sano waxa la isku qabsan lahaa shirkadda dhismaha qaadatay dabcan shirkadda buu ku leeyahay laakiin waa shirkadda dhismaha qaadatay waxa la isku qabsan lahaa shirkadda dhis lahayd tana dhis mise tana u dhibna mise tana yaa la isku qabsan lahaa 1 sano goobtii lagu dhisi lahaa iyadana la isku qabsanaya 5 sano oo dhismo ah ku soo dir marka 2 sano 3 sano 5 sano 6 8 10 iyo 3 horta waa 13 sano ha ayuu qaadan lahaa ma horta waa wax macquul oo jira laakiin 48 saacadood in lagu dhiso oo lagu istaajiyo lagu guda galay iyadoo dawladdu ay sheegtay muddo 6 maalmood in lagu soo gabagabeyn doono macal qalabeyntiisa dhan marka istaalkaasi haduu Muqdisho ama Soomaaliya aha buu yiraahdaa soo ku salay xaaladaha taagan waagaag waxa uu sheegay in baarlamaanku horta waxa la arkayba maanta inta badan waxa la arkaa
qodobka xilliga la ansixiyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilliga wax la ansixiyo lama arkaba ma badna laakiin waxa badan inta wax laga doodayo waxaan sifana waxay u tahay wax saxan oo waxa weeye dhinaca waqti badan ay u qaadataa sharci baa la meel marinaya sharcigan kaliya lama rabo dawladda hadda joogta inay ku shaqeyso waxaa la rabaa inay waqti badan uu sii jiro oo dawladda iyo nidaam cusub oo la sii jaanqaado in laga doodo horta waa muhiim laakiin isaga waxaa la yaab ku noqotay in 48 saacadood isbitaal inta leeg lagu dhisayo xaaladda Soomaaliya dabcan uu ku soo dabaqay aad iyo aad ayuu ahaa oo farintaasi kaga soo jawaab su'aashii aan baraha bulshada waa tahay haddaba waxaa markan aan hayaa dee qofkan soo qoray sheekadan oo dhanka baraha bulshada ku soo dabaqay waa aad bay u dheertaa waa 2 warqadood aad iyo aad waxaa la yiraahdaa wiilkan Mustaf Sheekh Cumar waxa uu na joogaa South Africa Mustaf Sheekh Cumar aad iyo aad Mustaf waxa dad waxa jira South Africa magaca ay bedeshay bal iska wada ma isaga magac ma bedelan okay Mustaf waxa uu yiri Farxiye Cabdalla waxaan idinla wadaagayaa qiso ka dhacday jimcadii la soo dhaafay magaalada caasimadda ee Muqdisho okay South Africa soo joogo Muqdisho iyo update yahay oo la socda waa yahay waxa ka dhacday buu yiri masaajid kamida masaajidada magaalada Muqdisho ku yaala gaar ahaan degmada Wadajir xilli salaadii jimcaha loo istaagi rabay ayaa waxa la soo dhigay buu yiri meyd naxash lagu sido waa meesh naxash lagu sido dabcan waa sariirtii meydka lagu qaaday kadibna waxay maamulkii masaajidku dhaheen meydka halka dhiga markan salaada jumcaha tukana ayaan janaasada ku tukan doonaa nimankii meydka waday haye ayay dhaheen salaadii ayaa la tukadaa uu yiri waxa lagu yiri meydka soo qaada si aan ugu tukano markii salaadii jumcaha laga baxay mid kamida ayaa dhahay buu yiri walaalayaal waxaan ahay nin anna waxba ma haysto meydkana deyn ayaan ku lahaa waxaan codsanayaa buu yiri inaad islaamnimo oga bixisaan hadaad been moodeysaan wuu yiri waa kanay walaalkii ayaa og meydka walaalkii buu hore u soo kaxaystayba iyo ninkii deynta ku lahaa masaajidka isla imaadeen waaba arrin la yaab leh hadalkii waxaa qaatay meydkii walaalkii wuxuuna dhahay baa leeyahay waa runtiisa walaalkay waxa lagu leeyahay deyn gaaraysa $2,000 $2,000 Mareykanka aniguna inaan bixiyo ma awoodo miskiin saaxibul ciyaal ayaan ahay wuxuu yiri jamaacadii masaajidka ayaa la isku wada dhixiyay waa la argagaxay maxay tahay meydka ninkii deynta ku lahaa uu daba socdo uu leeyahay deyntayda iga siiya waxa la arki jiray dabcan markii deyn meesha meydka ay yaala okay kadib maxaa dhacay isla markiiba waxa la yiri isla markiiba Soomaalidu waa sheekada laba qayb baan ka dhignay qaybta waa qaybtii koobaad uu nala soo wadaagay qaybta kale wuxuu yiri isla markiiba Soomaalidu waa wuxuu yiri dad beer jilicsane mid kamid ah buu yiri jaamacadii masaajidka jaamacadii masaajidku ka wada jaamacadii sorry waa dadkii salaada ku soo tukanay masaajidka okay wuxuu yiri mid kamid ah jaamacadii masaajidka baa wuxuu yiri horto $1,000 markaa yuu halkii ka bixiyay because wuxuu ka naxay qofkan markaa deynta kule meydka la keenay ee janaasada lagu tukan rabo ee walaalkiina la socdo ee lagu marqaat furay ee isaguna leeyahay anu deynteeda kama tagayay waan ku daba dhaganahay okay $1,000 buu barti ka soo tuuraa la yiri ku bixi EFC okay EFC baa saa isu daba yaacay buu yiri wuxuu yiri waxaana ku guda waryaan kugu daalin ka wadaa imaamkii baa isagana wuxuu yiri $2,000 ay urusheen macna masaajidkii EVC dadkii ku dukanayo dadka urursan markii la rabay in meydka la soo dhigo lagu tukada salaadii jinaasada طبعا marka ninkii deynta rabay waa la siiyay qof baa lacag tuuro qof kala tuuray kadib markaas waxa dhacday baa la yiri in marka ninkii horta lacagtiisa uu qaatay so waxa yiri aaway meydkii hala soo dhigo horta okay meydkii hala gaaro marka waa la isfiiriyaa la yiri nimankii tartiib ayayba u kala dhuunteen horta
walaalkii iyo ninkii deynta meydkan deyn ku leeyahay dhahay labadoodii waa kala dhunteen tolo ma waxay soo wadaan meydka anagu lama dhalan waa ku qaraabahay okay haye maba joogaan markaasaa la yidhi meydkii ayaa marka la soo qaaday nimankii inay kala dhunteen la arkay oo la waayay kadib meydkii la soo qaaday magaas kaga tukanayna ha nin jamaacadii kamid ah ayaa dhahay war bal inaga hubiye macnaha nimankii inay kala dhunteen la arkay iyaga marka way shakiyeeno maadaama deyntii markii la bixiyay ay kala dhunteen labadoodii marka waxa la yiri war bal naga hubiya inuu meydka yahay iyo in kale maadaama inuu meyd yahay in kale ninkan la keenay طبعا nimankii meydka waday ee deynta ku watay iyo kii walaalka la ahaa yaa la waayay waa kala siibteen markaas bal horta wuxuu inuu meyd yahay in kale naga hubiyo labadoodii waa kala siibteen okay inuu meyd yahay iyo maxaa la yiraahdaa in loo ekeysiiyay iyo war bal naga fiiriyo horta ma qof nool ama waa qof dhintay kadib صح waxaa la yiri in kale hadii la fiirshaa la yiri meesha dhagxaan iyo maryo meyd loo ekeysiiyey leeba ku jiro kulaa طبعا هذه وارل ايام dhagxaan iyo marooyin inta la isku aadiyaaba meyd laga dhigay waaba xarfaan zaa'ida waayaba ta isku toosiyeen meyd camal ka dhigeen ee masaajidkeen kadibna wuxuu la soo istaagay aniga saaxiib ciyaala ahay $2,000 ninkan ku leeyahay lacagta hal iga siiyo heerkaasaan maraynaa heer waxa ay gaareen dabcan ay ku qaraabtaan waxaan meyd ahayn markii isku soo toosteen xarfaan baa marka waxa markii lacagta la siiyo loo tuurayna ama la siiyayna laba dhinacay ka laabteen la dhahay meydka naga fiiriyo markii la saxta nool yahayna meyd ma aanba dhagax iyo markii meydkina waa laga shakiyo waa bal naga fiiriyo dabcan waa sheeko aad kaartada laakiin kaarta zaa'id ah waaye Mustafa Sheekh wara kulli waxa u malaynayaa magaalada aad ugu soo jiro kaartooyin cusubna waa sameeyay kaartooyin kaartalka ka gaartay tolo maxay misaal inay meyd u ekeysiyeen wala kaartada zaa'id waaye Mustafa Sheekh Umar aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee aad storygan ama sheekadan baraha bulshada RTN caawa oo la wadaagtay adigoo jooga South Africa waagaag aad baad u mahadsan tahay dabcan waxaan malaynayaa miyaan dhextaal aadna dhextaal baynu aadnaa mise warqadan aan gacanta ku soo qaataan si raaciya sheekooyinkeeda ay ka daba harin dabcan aad sheekadan aan si daba raacinayaa oo yaa ku yiri raaci ma dhextaal aadna waan xoogayaa dabcan warqadan waxa isagana soo qoray fariintan Axmed Maxamed Jaale wiil lagu magacaabo waxa uu yiri kadib dabcan sheekadii hore soo sii galay kadib gacalashadiisii markii ay kala hareen ayuu bilaabay inuu Facebook ku caayo dabcan waa nin iyo gabadh isqabay oo kala tagay ninkii baa wuxuu bilaabay inuu Facebook ku caayo isagoo sawiradeeda soo gelinaya kolkii ay ku adkeysan weyday aflagaadada iyo adkeysan weysay beenta iyo aflagaadada uu ka sheegayo ayay loo yar qabsatay oo dacweysay dabcan waxaan malaynayaa waa meel loo yar iyo wax la qabsan karo dhulkeena maaha dhulkeena xataa loo yar waa la qabsan karaa damay loo yarku wuxuu u baahan yahay laftigiisu qarashaad marka qarashka laga hadlayo sax maxkamadii markii la hor keenay midna way jirtaa dadkan markii loo yarmaba aadaan xeer baan inuu aadnaa dabcan markii Soomaaliya la joogo hadii laba qof isku dhacaan ama si family isugu dhacaan xeer baa la aadayo maxkamadda xaal wax la yiraahdaa marka dambe hadii qof ku cadaato xeer waxa ka hadlaysa odayaasha la aadaya okay gabadha wiil xumeena odayaasha loo taga Facebook ku cayna oday hebel la wacaya wiilkii nisaan arintaas naga sameeyay maxaad kale duulaan shan oday duulana odayaasha kale u tagayay ma yaadana odayaasha shan ku imaadaan kuwan kalena shan waraa waa reer waa shanay anagana waa inaan shan noqon aldaa magdaarto kana way jirtaa adiga hadaad reerka u hadasho anigu adi bisaan ku jawaabay ana jawaabay ku kala haduu hadlo ka kale la isku masaqajaabay tan kale macnaha markii maanta reerkan ay shan qof soo baxaan oo kale waa inaad shan aad ka haystaa afar laga miyelay afar iyaga waxay dhahaynaa waa shan inaan shan ugu tagno waaye nagu caaweynina meesha marka dabcan xaggaas la aadaan aadayo maxkamadii dabcan sheekadii aan ku sii soconaynaa maxkamadii markii la hor keenay oo dambigii ku cadaaday ayaa garyaqaankii maxkamadda markuu eegay qodobka xeerka ciqaabta ku xukumay laba mid inuu kala doorto laba qodob baa loo soo jeeday labada inuu mid kala doorto kow buu yiri 6 bilood oo xarig ah ma yara waa meesheeda qodobka labaad wuxuu yiri labo ama inuu muddo 6 bilood ah gabadha amaano
maalin kasta intuu sawirkeeda soo geliyo dabcan waa intuu haystay in la ego ammaana inuu ka dabageeyo ama inuu ammaano ama inuu 6 bilood xariga uu qaato isagoo aad uga naxsan buu yiri labadaa tii uu qaadan lahaa ayuu fikir yar kadib go'aansaday inuu tan dambe ee ammaanta ah qaato qaaligii ama qaadigii markaa maxkamadda xukumayay ayaa xukunkii riday wuxuuna ku amray inuu subaxii ka bilaabo faaninta iyo ammaanada in berisu wuxuu ka bilaabo dabcan ka bilaabo waxaan malaynayaa markaa casar liiqad baa la joogaa malay marka berisu caawa iska seexee ka bilowba liiqadii ammaanta gabadha haye inuu berisu ammaanta gabadha isla markaana uu ku soo taageerayaa la yidhi garsooraha si loo ogaado inaad gabadhan ammaantay maadaama inta waraba loo baahan yahay arrintaas looyarkaas xageen ka helaa garsoore wuxuu ahaa inta soo cajiibe rag badan baa wax walba gabdho ku soo faanin lahaa facebookooda garsooraha maxkamadda inuu maalin kasta kusoo iyo weliba xeer ilaaliyaha baa la yidhi si loola socdo oo meeshu aysan dee uusan intuu sawis ka dhigo yaaba ogaanayo marka sifo loola socdo dabcan markii qofkan lagugu soo taagarayo hebel wuxuu soo dhigaan kugu soo taagaray maanta official waa ku soo galaya adigana uu ku arkaya waxaa la leeyahay hebel baa kugu soo taagaraya waxaas maanta ayuu bilaabay yiri waxa uuna u dhiman 179 maalmood inuu ammaan cusub maalin walba soo qoro oo marka sheekadan xilligu noo soo diray ayay ninka shaqo kala bilaabatay 179 maalmood baa u sii dhiman baa la yidhi inuu ninkaasi gabadhaas sii ammaano laakiin ammaantii iyo horta dabcan ba siday tahay walaa waa loo baahan yahay arrinkan la xiriira ma aragtay igu soo taageerada iyo dee maxaa rag baa jira hadda iyagoo gabdhuhu ayaan waxba ka samaynin khalad ayaan ka gelin maanta oo dhan gabar walaashiisa ah soo aflagaadeynaya ama gabar ay kala tageen oo kala maanta oo dhan wax xun ka soo sheegaya ama maxaa la yiraahdaa gabaruusan aqoonin oo xataa qofka baro oo wax un ka ogow isagoo qofka aan baranin oo aan waxba ka ogeyn maanta dhan intiga wax un ka soo qoray heblaaye waa saan heblaaye ugu yaraan xataa heblaayada uusan aqoonin oo uusan baranin soo day ragga marka haday garsooraha iyo heli lahaayeen xirraaliyaha de soo waliba amaan baa loo soo dhigi lahaa horta Soomaalida inta badan gabdhaha markii dhankooda loo yimaado aad bay ugu weyn yihiinba waxa laga yaabaa haday maanta gabar iyo wiil is qabsadaan balse ay gabadhu ay gardarada ay lahayd oo gabadhu ay ku horeysay in wiilka eeda la saaro la yiraahdo adaa qaldan marka waa qasab inuu sidaa ku qaato haddana dabcan hadda social media waxaad moodaysaa anoo ku aqoona la leeyahay farxiyo waa noocaas imagine adoo kulama soo hadlin xogtaadii waxna lagu waa iska soo galaya ugu yaraan baro oo de wax ka ogow qofkaas moogtay midna way jirtaayo Soomaalidu markii baraha bulshada la yiraahdo de kulli way jiraan dad si dhanka fiican u isticmaala oo dhanka fiican dadka uga faa'iideeya laakiin waxaad arkaysaa qofku wuxuu malaha is leeyahay haddii aadan ama wax caayin ama wax aflagaadeynin ma noqonaysa caan marka waxaan u malaynayaa dadka caayinaya in la barto ka arkayaan sababtoo ah qofka hadduu la arko qof soo qof caynaya waxa leeyahay bal hebel qofkan qof caynaya waa la sii wadaya marka wixii way sii dheeraanaya laakiin waxaa la ogaaday in Soomaalideena horta gabdhaha xagooda aan laga marin 100% waxa laga yaabaa maanta wiil inuu gabar intuu sawirkeeda soo qaato ama erayo xun uu ku soo qoro ama magac intuu soo qaato uu markaa si xun uu la soo qoro waxa dhacdaan ku dhameey marka waxa dhacdo inta qof ay ka soo aragti dhiibanaysa ama commentiga u soo qorayso 90% waxa leeyahay maxaa ku geey gabadha walaashaada ah aniga hadda kula hadlaya waxaan xaadir u ahaa gabar baa maalmahan wax kamid ah waxa jiri adu waa la marmurmay waxa la yiri gabadhu hadii saa la yiraahdo iyagu xaqooda lama diidi karo nin baa marka isir walwaale dhalinyartii marka meesha fadhiday kamid ahaa iyadii baa waxa jiri fiiriya ninkaas aan u galo dabca sheekadaas waa goob joogan u ahaa waxa tiri waxaan oranayaa way iska ooyaaba markaas de fariistay iska ooyay walaal soo waxa ku dhaca anaga taanada lama yeelay sababtoo ah gabar kale meesha ma joogto wixii waa iska dhalinyar raga meesha gabadhu way iska ooyday waxa ku dhaca ninkaas ay caayir marka dagaal baa loo saftay waa la isqa qabsaday xitaa waxay gaartay xeer meesha sharaacada intii la siimaado gabadhii waa la caay anaga maqlaatay xitaa laguma weydiinayo waa la caay intaan jawaabada anigu waxa la leeyahay adiga waxba kaama boqosay gabadha wiilka la dhashay iyo aabbaheed la wuxuu leeyahay sheekadan waa jirtaa waxba gabadha waa la caay bilaash ma ooynayso waxaan xasuustaa wallahi ninkii waa la ganaaxay maxkamaddu lacaga lagu ganaaxay
halin xaal baad bixinaysaa xaal baa kugu waajib ha waxa kaliya lagu sii deyn karaa la yidhi gabadhana ha ku cafiso xaalkaana waa inaad bixisaa xaalkii laga qaatay wayna bal ka sheekee anaga waxay ka turjumaysaa Soomaalida aad iyo aad siday gabdhahooda u ilaaliyaan meesha joognayna laga diido la yidhi idinku xitaa meedaan bal la dhalan dabcan haddii ama wiil qaraabada la ah marka uu joogi lahaa iyada waxaa la dhihi lahaa wiilkana dee walaaladihiina walaalkeeda meesha ma ba dhicilin in la aflagaadeeha ama hal la weydiiyo meeshana waxay ahayd waan ku tusayaa in hadalkaygu uu soconayo dabcan waxay ka turjumaysaa xeerka Soomaalidu meesha aad iyo aad marka qof haduu maanta waa bal og yahayba xataa wado gabar joogto kale iyadoo si wax ka yin la arko maxaa kugu dhacay aad baa loo soo markaa soo wiilashayada gabdhahana aad ay u ilaaliyaan inta yaree xunna waxaan ku yiri markay saa wax u sheegaan waa lagu soo shago waa tahay horta qaybihii dambe isla soo gaarnaa u maleynaya sheekooyinkan ugu batay qof ugu dambeeya oo magaciisana halkaan aanan igu qornayn laakiin aad u xiiso badan aan hayo okay soma waad noo raaci doontaa qofkan soo diray wuxuu yiri horta sirta iyo khiyaanada dumarka laguma gaaro ayaan aniga idin hayaa buu yiri gabar lagu magacaabo buu yiri Raabica Basri oo meel wada cidla ah socota ayaa waxay aragtay buu yiri in aad u daawanaya oo iyada aad u daawanaya waxay weydiisay maxaad iga soo eegaysaa bay weydiisay su'aal ah ninkii ayaa wuxuu ugu jawaabay weligay ma arag gabar sidaada oo kale u qurux badan ee xasmiya tahay Rabiica ayaa tiri hadii ay kula tahay inaan anigu qurux badanahay waa inaad aragtaa walaashay oo iga sii qurux badan wax yar sug waxay soo socotaa gadaasheedii ku tiri ninkii ayaa eegay gadaasheeda oo raadiyay cid daba socota laakiin qofna ma uu soo arkin baa leeyahay marka ayuu yiri halkee cidiba anigu ma arkay waayay aaway gabadhu adii sheegaysid Raabica ayaa markaa ku tiri buu yiri ninkii hadaa tahay nin guur u qalma markaad ila kulantay gadaasheeda gabar kale kamaadan raadiseen bay tiri waxaad oran lahayd adiga cid ka qurux badan maba jirto waan kugu qancay sidaa ayay uga dhaqaaqday okay sheekadan xigmada ku jirta aad buu maasay qofka in la soo wadaagay inkastoo sheekada magaciisa uusan soo raacin laakiin qoraal ahaan iyadoo marka dhanka iyo Facebook isagana uu inoogu soo diray marka sheekadan xigmada ku jirta waxay tahay rag weyn iska damac badan yihiin gabar aad u qurux badan oo arkay markuu wuxuu yiri gabar ka qurux badan ma arkin xasmiya tahay marka iyadana ugu jawaabtay walaasho iga qurux badan soo socotay buu gadaal eega mugta markaas waxay tiri haddaad anigu aad igu qanacdo nin guurdoon sax ah tahay waxaad leeyahay gadaal ma eegay gabar ka qurux badan ma jirto waxay tustay dabcan way tijaabisay deeha way tijaabisay walaashay qurux badan soo wax ma arkay waagay waxaan soo gaarnay dabcan gabagabadii barnaamijka sheekadan oo dabcan inta badan Facebook ay dad badan ku qoreen ayaa rabaa oo anigana aan aad ula dhacay inaan ka daba geeyo qofna si bareefad ay ugu soo diray waxa uu yiri wuxuu soo bilaabayba wuxuu yiri waxaan ka qayb galay casuumaad aroos qof aroos baa meel ku jiray waa lagu casuumay markaan hotelkii gaaray buu ayaa waxa iga soo horbaxay laba albaab oo labada mid ay ku kala qoran yihiin midkaan ragga ka galaya midkaan dumarka dabcan waa la kala leexiyay waxaan ka galay buu kii ragga maadaama isagu nin ahaa haddana waxa iga soo horbaxay buu laba albaab oo mid ay ku qoran tahay arooska ehelkiisa kan kalena ay ku qoran tahay aroosada ehelkeeda okay midkii uu yahay haddana midka tahay waxaan ka galay buu kii ku qornayd arooska ehelkiisa wiilka dhankiisa dabcan wiilka xaq ayuu ka socday casuumadaas haddana waxa iga soo horbaxay buu laba albaab oo kale oo mid ay ku qoran yahay dadka hadiyadaha sida kan kalena ay ku qoran yihiin dadka aan hadiyad sidin okay waa gudii hotelka la sii socdo wali waxa ku qoran dadka hadiyadaha sida ka galaan kuwan hadiyadaha sidina ka kala ka galaan okay taban wuxuu yiri waxaan si sheekadu waa sii socotaa xaguu raacil baa ku ka baxay marka taban waxaan ka galay buu yiri kii aan hadiyadaha sidin because isagu hadiyad ma wada waana waxaan ka galay dadka aan hadiyadaha sidin waxaan is arkay buu yiri aniga oo dhex taagan hotelka gudihiisa waxa horteedaba ku qoran markaan qolkii hore u sii galay waxa horteeda board ay ku qoran tahay madaruufahan adag ee dhaqaale aynu ku jirno ayaad faramadnaan timid oo doonaysaa dabcan inaad cunto cabtid
war iska laabo war isla yaab dabcan meel banaana laga soo tuuray qol banaana lagu soo tuuray soo socday qol banaan u galay markaasaa la yidhi niyo doqonsanida ma waxaad rabtaa duruufahan adag iyo xaaladan lagu jiray joogan wadanka jira aroosaan dhiganayna inaad cunto cuntid ood cabto ood haddana iska baxdo war isla yaab marka banaanka lay tuuru yiri aroos waa ka tagay abi horta waa shay hadii horta ay dhici lahayd waxaan u malaynayaa dad badan inay arrimahaasi ku dhacay sababtoo ah hotelka markii la isku casuumo warqad lagu keenay hay'ad inta badan la isku taxalujiyo waxa leedahay dadka u soo camir marka in yarun baa dhacday inay hadiyada geeyaan marka waa banaanka la soo dhici lahaa Soomaa ها بعدين عمل بناك القصة طور لا سو سعودي ما انت بتلك عسيمات وقت هاي قبل برنامج كأيان إسلسو قارني وحنو مهالعلنا يا ورتو داودياشا برنامج كحرن يددوينها يجا عاوة كسو أركتي ديبتي سو أشي دن كان فيسبوك أنكو صو بندقني وبقول كي بسقاشن برنامج كعاوة أنكو قادا دقينا قف ولي بنسيدا أيلا تايبو سو هادلي إيو وحيابه يوقع عجيب سنة مركا أولا كل ما أما أو أركي hadday tahay kala taga qoysaska iyo hadday tahay waxyaabaha la yaab kale ee dhanka baraha bulshada sanadahan ugu dambeeyay bulshadeena Soomaaliyeed iyagu ay kala kulmaan moogi aad iyo aad barnaamijka dabcan waxaan filayaa qaybihii dambe soo gaarnay intaas ayaa ku soo gabagabeynaa dabcan barnaamijku waa barnaamijkii baraha bulshada waxaan ugu soo qaadanay inta ugu badan ba dabcan qoraaladii aad nala soo wadaagteen aad kaga soo jawaabaysaan su'aashii aan Facebook idin kula soo wadaagnay ee ku saabsan isla baraha bulshada ee Soomaalida dhexdeeda intaas ayaan ku soo gabagabeynaa dabcan waxa si wada jira barnaamijka idin ku daadinayay Farxiye Cabdalla Buumin sida hore u sheegtay waayaan gabdhaha la horeysiiyay Farxiye Cabdalla Buumin iyo Cabdiqaadir Maxamed ayaa idin la socodsiinay kaamirooyinka dabcan waxa naga caawinayay Indifa sidoo kale farsamayaqaanka guud ee barnaamijkana waxa uu ahaa Maxamed Hussein barnaamijka waxa soo saaray Shiine yep madaxa barnaamijyada TV-ga annagoo isku duwan waxa idin leenahay nabadgelyo Drop it low.